warar goordhow naga soo gaaray waddanka Ethiopia waxa ay sheegayaan in gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia loo magacaabay Ahmed Shide oo ah wasiirka isgaarsiinta iyo warfaafinta ee dawladda federaalka Ethiopia kana soo jeeda deegaanka Soomaalida Ethiopia. haddaba si aan faahfaahin arintaasi ku saabsan u helno waxa qadka telefoonka hadda toos ugu jira Khadar Cabdi Ismaaciil madaxa xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia. Khadar haddii aad maqli karto sidee magacaabistan u dhacday? aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudooyinkii ugu dambeeyay ama labada cisho ugu dambeysay waxaad ogsoontihiin in shir golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalidu uu ku jiray shirkaas oo ah ama waxaad ogsoontihiin sidii dhibaatooyinkii ugu dambeeyay ee deegaankeena ka dhacayay barihii ugu dambeysay guddiga fulinta ee xisbiga dimuqraadiga shacabka golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida ayaa ku mashquulsanaa xaaladaas sidii loogu bixi lahaa isla markaana xisbigu uu ka qaadan lahaa qolkiisii hogaamineed marka shir waqtiga aan ku jirnay maalmahanba ayaa waxa aan ku dooranay maanta gudoomiyihii xisbiga oo marnaa booskaasoo marnaa inaan buuxino kaasoo isla markaa u dooranay mudane Ahmed Shide Maxamed oo ah wasiirka communicationka federaalka. Ahmed Shide sida la ogsoon yahay waa xubin in badan ama 20 sano ugu dambeeyay dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia kaasoo isla markaana buuxin kara ama karti u leh inuu xisbigan sii hogaamiyo. waxaad ogtaa Khadar in horaantii bishan aad golaha dhexe ay magacaabeen madaxweyne oo Ahmed Cabdi Maxamed loo magacaabay warar soo baxayna waxay sheegayeen in federaalka ay saluugsan yihiin magacaabista iyada xagee ku dambeysay magacaabistii madaxweynihii dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia. aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida aad u sheegtay horaantii bishan waxaanu dooranay madaxweyne cusub kaasoo aanu dooranay mudane Ahmed taas wax kulli xaggan federaalka oo dib ka jiray hadda ma jiraan isla markaa hadda lafteeda isagoon baa ah madaxweynihii taas waa sidaas taa in loo ogaado ayaa muhiima hadda waxa soo kordho kaliya waxa weeyaan boobkii gudoomiyaha xisbiga oo banaana ina sidii aan hore ku sheegay waxaan u dooranay mudane Ahmed Shide Maxamed inta loo ogaado waxa loo fahmayaa muhiima way xagee doorashadan ka dhacday waxaana loo sheegay in golaha dhexe ay Addis Ababa tageen oo laga yeeray ma shirarka iyo go'aamadan ma Addis Ababa ay ka soo baxeen goluhuna halka miyay ku sugan yihiin sida loo ogsoon yahay xaaladii magaaladii Jigjiga ee golaha dhexe ku shiri lahaayeen sida ay ahayd waan ogsoonahay nabadgelyo daraa jirtay khilaafaad baa jiray markaas ma jirin marxalad uu golaha dhexe ku shiro ama go'aanadan uu ku gaadho sidaa darteed golaha dhexe wuxuu doortay in uu tago ama uu codsaday ama uu isku codeeyay ama uu go'aansaday in taabashirku ka dhaco si loo hesho degan isla markaana loo falanqeeyo dhibaatooyinkii loona buuxiyo boosaska banaan ma garatay awoodda gudoomiyaha xisbiga maxay noqonaysaa wasiirkiisa ma sii ahaana dawladda federaalka Ahmed Shide awoodda gudoomiyaha xisbigu waa sida xeer hoosaadka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia ku xusan awoodda xisbiga iyo awoodda gudoomiyuhu waa sidii uu hogaamin lahaa xisbiga xaaladteeda hadda waxaan rabnaa haddii Ilaahay yidhaaho in aan kala saarno xisbigii iyo xukuumaddii qorshayaasha noo dhiman baan haddii Ilaahay yidhaaho ku eegi doonaa marka awoodda xisbiga gudoomiyuhu waxa weeyaan hogaamintii nidaamku kulley xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan wixii dawladda hogaaminayana waa xisbigii waxa dawladda dhistayna waa xisbigii taas marka kama dhigna in dhib kale ama uu jiro ama si gaara uu jire wixii maadaama ay isku mid yihiin qorshayaashii iyo hagiskii mar walbaba waxaa lahaa xisbiga taasay noqon doontaa haddii Ilaahay yidhaaho waaya ugu dambeyntii waxaa soo baxayay in Ahmed Shide uu noqon doono madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia arinta maxaad nooga sheegi kartaa arrintaas waxba kama jiraan baan ku leeyahay
axmed shidan wuxuu sii ahaan doonaa wasiirkiisii heer federaal madaxweynuhuna waa axmed labada axmed yaan la isku khaldin madaxweynuhuna waa sidii kii hore oon aan u dooranay axmed shidan haddii ilaahay yidhaaho waa guddoomiye xisbiga oo kolley dabaashii kama marno xisbi ahaan iyo nidaamkii xisbiga unbaa lagu shaqaynayaa kama dhigna markaasi inuu isuna si gaara uu yahay ama madaxweynuhuna uu si gaara yahe laba jeerada iyadoo laisku duuban baa la wada shaqaynayaa qorshayaasha la isla qaadan haddii ilaahay dhibaatooyinka annaga noogu muhiimsanaa dhibaatooyinkii iyo nabadgelyo daradii almaha nagu jiray sidii aan uga bixi lahayn iyo dhibaatooyinku say ku dhaceen waxyaalaha aan ku mashquulsanayna inta badan xoogga saarayna kuwaasaa ka mid a